galmudug waxaa ay ku caan tahay ideeda dihanbay ku caan tahay cilmiya aqoontay ku caan tahay oo culumma diinkay ku caan tahay galmudug waxaa ay ku caan tahay ideeda dihanbay ku caan tahay cilmiya aqoontay ku caan tahay oo culumma diinkay ku caan tahay daweynta diiran iyo waqtiga aad dheerna sugayseen waa idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aad mahadsantihiin intaas kadib waa idiin nimid socodkaygoo dhowr arrimood isugu jira waxaa ugu muhiimsan xaaladihii caafimaad darro ee baryahan ka dhacay magaalada Cadaado oo dad badan ay u geeriyoodeen dad badan ay u jiifaan cudurka COVID-19 ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa jannadiisa intii dhimatay inuu siiyo ilaahay ha u naxariisto waxaan kaga soo hormar ku caan tahay ciidan iyo cudud bay ku caan tahay nabada caamay ku caan tahay oo hisiya caabiyay ku caan tahay galmudug waxay ku caan tahay ciidan iyo cudud bay ku caan tahay nabada caamay ku caan tahay oo hisiya caabiyay ku caan tahay mudatiyo allow carraaf ka dhowro allow calankeedu jiray ilinay mudatiyo allow carraaf ka dhowro allow calankeedu jiray ka jireen waan ogahay dadka oo dhan dhinacyada oo dhan nabadda iyo wanaagga u heelayiin waa taaba gelinaynaa oo gobashii iyo saldhigii baan ka dhigaynaa galisoor dila yiraahdo ciidamadii iyo amnigii nabadda lagu hirgeli lahaa lagu ilaalin lahaa lagu dhowri lahaana diyaarintoodii iyo isku dabaridkoodii iyo meelmarintoodii baan gacanta ku haynaa dila yidhaahdo in badan baan idiin mahad celinayaa reer Gallinsoor gaar ahaan waxaan rabaa inaan xuso gabdhaha qiimaha badan oo reer Gallinsoor oo runtii taariikhda iyo wadaniyadda iyo taariikhda ka muuqatay walaalnimada dheeriga aad iyo aad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galmudug waxaa ay ku caan tahay ideeda dihanbay ku caan tahay cilmiya aqoontay ku caan tahay oo culumma diinkay ku caan tahay galmudug waxaa ay ku caan tahay ideeda dihanbay ku caan tahay cilmiya reer gaalkacyo taariikhdii dowladnimada Soomaaliya iyo xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqeeda ay u lahaayeen waa ka muuqataa maanta magaaladan waa magaalo taariikhiya Soomaaliya xorriyaddeeda iyo dowladnimadeeda taariikh ku leh hoggaanka iyo hoggaan wanaagga iyo dowlad wanaagga taariikh ku leh lagu yaqaano bulshadeedu ay yihiin dad Soomaali si gaar looga yaqaan ka tilmaaman reer Galmudug waa isku tashadeen waa dhaqaaqeen ilaahay idinkii waxa yaalla oo hawl ah oo la qabto ay tahay iyo horumarka ay u baahan tahay reer Galmudug waa qabsanaya insha Allah galmudug waxa ay ku caan tahay dhalinyaro doonbay ku caan tahay oo curadi iyo hablay ku caan tahay oo iscalool xaartay ku caan tahay galmudug waxa ay ku caan tahay dhalinyaro doonbay ku caan tahay oo curadi iyo hablay ku caan madaxweyne soo dhawow halkan waa dugsiga tababarka indhaqaris waxaa halkan jooga ciidamadaas tiradooda 342 nin qaar kale dhuusamareeb ay jiraan qaar kalena ay dib uga soo biiri doonaan oo baabuurtii iyo soo fix garaynayaan ammaanadoodii hubkaas iyo ciidankaasba dowladda Galmudug oo madaxdu tahay madaxweyne ayaa lagu soo wareejiyay marka waxaan ka mahadcelinaynaa inaad u soo hoggaansanteen tixgeliseen awaamirtii iyo amaradii ka soo baxay dowladda Galmudug ku timaadeen xerada tababarka indhaqaris
aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin mas-uuliyad idin saaran inay idin saaran tahay garateen ku mahadsantihiin inaad garateen intaas kadib sida wasiirka amnigu u xusay galmudugta cusub waa galmudug siyaasad ka midaysan dhaqaale ka midaysan bulsho ka midaysan sida waxa kaliya ee u dhiman ay yihiin midaynta ciidamada reer galmudug meelay joogaan taas maanta bilow ka tihiin saldhiggeedii koobaad tihiin mahaddeeda gaarkana waa leedihin hirgelinteeda taabagelinteeda ilaalinteeda waxaa halbowle u ah matiir dhexaad u ah ciidamada reer galmudug daraawiishta ay maanta bilowga ka tihiin iyo boliiska la dhisi doono dambiilaha iyo ciidamada amniga ayaa iswaafaqaya haddii ilaha yidhahdo laba qabiilo dambe ma jiri doonto baahidii shala loo sameeyey kalsoonida shala loo sameeyey kalsooni iyo amni baan ku bedelaynaa iyo hubku xafidan aad iyo aad marsantihiin guulaysta tababarkiina saacaddaa laga bilaabo xerada tababarka indhaqaris waa furan yihin macallimiintii waa joogaan waxaan dhagax dhignay masaajidkii dugsiga tababarka indhaqaris sharaf bay maanta noo tahay xero ciidan oo aan masaajid ka dhex dhigan waa runtii weji cusub oo aan sugayna mirihiisa inuu ka soo baxo ciidankeena reer galmudug maanta bilowga daraawiishta xeradan tababarkeeda uga bilowday xero ciidanaa la dhex dhigi jiray ama xero ciidan baa la furi jiray in masaajid aan ka dhex dhigno waxay noo tahay insha allah ilahayna waxaan u yeelaynaa raallaanshihiisa ciidamadeennana waxaan u rajaynaynaa inay masaajidkaan ka faa'idaystaan cibaado iyo barashada diinta islaamka intaba uga faa'idaystaan taasna reer galmudug oo dhan baa ka faa'iidaya nin askarigii cibaadaystay diinta aqoon u leh waxa cabsida alla yaqaan aad bay waxay nagu tahay fursad weyn oo maanta runtii ilaahay subxaana watacaala na joojiyey waxaan rajaynaynaa mirahaas inaan ka gurno ciidamadeenna ee faa'iida insha allah waa aad iyo aad mahadsantihiin